haba aad iyo aad u mahadsan tahay horta marka koobaad ku soo dhawow magaaladii nabiga Madiinatul Munawwara waa magaalo taariikh aad iyo aad u weyn leh taariikhaheedana aan la soo koobi karin waxa kamid ah taariikhdaas ku dhex duugan magaalada Madiina buurta Uhud iyo dagaalkii Uhud ee ka dhacay halkan buurta Uhud saad u jeedaba waatana waa buurtan ka soo bilaabata xaggaas ilaa xagga waxa lagu tilmaamaa inay tahay 7 kiiloomitir dhirirkeedana ama dhirirkeeda korkor ay u dheertahana waxa lagu tilmaamaa 1077 oo fiid inay jeedo ballaceedana waxa lagu sheegaa inay 2 ilaa 3 ay tahay masjidka nabigana waxay u jirtaa ilaa 5 kiiloomitir waa halkan aan hadda ku sugannahay waxa loo yaqaanaa Jabal Rumaa waana halkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu saaray konton kamida saxaabadii waliba kuwii shiishahanada ahaay si ay u ilaaliyaan dhabarjabinta oo nabiga asxaabtiisa gaalada la dagaalamaya aan dhabarjabin loogu sameyn sidaa darteed buurtan waxa loo yaqaanaa Jabal Rumaa waa buurtan yartaad u jeedaan nabigu kontanka saxaabi uu saaray wala dardaarmay wuxuuna aad ugu adkeeyay inay sanbuurtan ka soo degin hadii ay guuleystaan iyo hadii laga guuleysto intaba dagaalka markii muslimiinta iyo gaaladu ay isku hor yimaadeen dagaalka isla markiiba waa lagu kala calaf qaaday oo muslimiintii ayaa guuleystay markaa kadib saxaabadii waxay yiraahdeen maadaama dagaalkii lagu kala baxay ma qaniimada iyo nimcada meesha taala wax ka doonan saxaabadii ayaga isku khilaafay buurta la saaray 38 kamid ah waxay yiraahdeen qaniimadan doonanayna oo waa dageen 12 kamidana halkan ay ku hareen oo waxay yiraahdeen amarka nabiga jabimayn sidaa darteed rag Khalid ibn Walid iyo Ikrima ibn Abi Jahl uu kamid yahay ayaa dhabarjabin sameeyay oo rag fardoolay ahaa marka ay ciidan ay wateen 12 saxaabi ee buurta ku hartay cagtay mariyeen muslimiintiina waxay ku sameeyeen dhabarjabin halka waxa muslimiinta ka soo gaaray jab aad iyo aad u weyn 70 kamida asxaabtii nabiga ayaa ku shahiiday nabiga kaleey salaatu wasalaamna waa lagu dhaawacay marka buurtan waxay xambaarsan tahay taariikh aad iyo aad u weyn dagaalka Uhud ayaa ka dhacay sidoo kale nabiga kaleey salaam wuxuu tilmaamay inay tahay buurtan buur aan jecelnahay ayaduna na jecel marka dagaalkii Uhud sidaas buu ahay waa dagaal aad iyo aad u weyn quraankana lagu sheegay saxaabo badanna ay halka ku hureen naftooda iyo dhiigooda si ay ugu khidmeeyaan diinta suuban diintan islaamka halka marka waxa ku yaala qubuurihii lagu aasay saxaabadii ku geeriyootay dagaalkii Uhud 70 saxaabi oo kamid ah waxa loo yaqaan shuhadaa Uhud waxaan markaasi sunna ah inaan tagno oo booqano aan u duceeyno Allahumma ihdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك